jeedaan oo waxay u egtahay xaaladana ilaahay unbaa dejin karo ilaahay subxaanahu wa tacaala horta awoodda asaga iska leh umuur almu'miniinkii la dilayna horta aadaan uga xumahay aniga shakhsi ahaantayda gabar Soomaaliyeedaan ahay gabar Afrikaanadaan ahay gabar muslimadaan ahay gabar ku nool dalka gaalada ayaan ahay oo wadanka Mareykanka joogto gaar ahaan Minnesota kaga nool ayaan ahay horta aad iyo aad baan uga xumahay wixii ku dhacay dawladeennii quwadda lahayd ee Iran horta wixii ku dhacay waan ka xumahay qalbi jab iyo niyad jab iyo oohin iyo baroor iyo walbahaar iyo calool xumo iyo qalbi xanuun waan la qabaa walaaladayda muslimiinta ah anigoo gabar Afrikaanada oo muslimada haddii loo baahdana carab ah ilaa carabta annagana tirsato wad ogtihiin Soomaalida waa carab baa la dhahaa laakiin Afrikaanadaydan ku qanacsanahay anuu Afrikaana haddana muslim ah ayaa waxaan leeyahay I'm sorry wixii idinku dhacay waa wax anaga nagu dhacay maxaa yeelay all muslim waa walaalo muslimiintu meel walba adduunka ka joogaan waa walaalo waa dad walaalo ah waxana mideeyay waa diinta weeye qof kasta oo muslim meel walba uu joogo uu ka nuuxsanayo walaal baan la ahay maadaama aan ahay gabar muslimada aan ahay soo marka Soomaali baan arkayaa wareertay oo meelay raacaan la oo marka horeba aakhira iyo adduunba seegtay oo ku faraxsan dhibaatada ku dhacaysa walaalaheena muslimiinta ah maxay tala duqaynta ay u geysanaysa Iran shalay baan ka hadlay oo iri jooji Iranay carada ha kula korkufin walaalaha kuwa soo sawirayo dubeeyo gubanaysa iyo maxay ahayd toolay imaaraad oo gubanaya iyo Sacuudi Carabiya madaafiic lala dhacay iyo kuwa ku faraxsan waxaan leeyahay doqomaatiin kuwa Soomaaliyan arkay oo ku faraxsan waxa tahay qof doqona oo caaq ah oon aqli bartiisa lahayn baa tahay wuxuu dalka kaaga dumay baad qabtaa waxa dalka iska adigu horta aakhirana ma jirto adduunyada ma jirto dad Soomaali tahay diinna ma haysatidoo diin xumidaada islaamka oo dhan way ogyihiin waxaad ku dhaqato marka anu waan ka xumahay anoo gabar Soomaaliyada oo Afrikaanada madaafiicda lagu daldalayo Dubai waan ka xumahay daaraha dumayo waan ka xumahay walaalahayga muslimiinta ah waan la dareemayaa waxay dareemayaan baan la dareenahay iyagaan ku dareenahay aad baan uga xumahay Dubai inay madaafiic ku dhacdo waa meeshii kaliya ee islaamku ay ku faanayeen Iran in umuurul mu'miniinki muslimiinta in la dilo adeer waa wax laga xumaada weeyaan adeer maanta kala qobqobsanaan muslimiinta loogama baahno muslimiinta waxa looga baahan yahay awoodooda inay banaanka soo dhigaan awood way leeyihiin cabsi ilaahay baa ku leh adoon ayagoo kala ah oo ilaahay abuurta inay ka baqaan uma banaano cabsi ilaahaygi adduunka ku keenay ayaa adduunkan ilaahaygi iska leh ee naftaada yar goortu u baahda qaadanaya soo doonanayo ilaahaygaas cabsi kugu leh bina aadan nuucaaga kala musqusha galo ee saxarada musqusha geeyo ee dhiman doono ee wajiga ilaahay dib ugu noqon doono heeda cabsi kugu malaha muslimiinta waxaan leeyahay meel walba joogaan inay isku tashtaan inay midoobaan in ay hal noqdaan in ay cadawga iska ilaaliyaan waxa jiro kuwa muslimiin ah oo cadow ah jiro inay kuwaasna iska fiirshaan kuwa waxa jiro muslimnimo sheegto laakiin qalbiga gaalada uga adeega jiro oo aan muslim mu'min ahayn mu'min waa munaafiqaas anaga munaafiq baan dhahnaa waxa jiro kuwa munaafiqiin ah baa muslimiinta ku jiro oo ku dhaxgabado tar iyo waagi maxay ahayd diinta islaamka maxay tahay nabi maxamed waxa jira kuwa la dagaali jiray baa jiro oo iska dhigi jiray muslimiin inay yihiin laakiin munaafiqiin baan anagu dhahnaa hadaan muslinahay marka waxaanu leenahay anigu waxaan leeyahay muslimiinta inay isku tashta
إن الله عبسنا إلهي سبحانه وتعالى أيا نجمضا إن إلهي كعبسنا إلهي وين إنه كعبسنا وين إنه منافقة ده كوريك سنة منافقة ده وين إنه كوريك سنة وين إنه قلبك مسلم خالص كان قرنا أذر وان كحم هاي أو أذر وان أوي أو أذر لبس عدد محيط يبربن إنتان ميل فريست أوي أمور المؤمنين كي بركي اللي ويا طلعي قال وحبا نوم مريبني ها قال وحبا نوم أقلو دقاق نوم أقلو وحنا ننقنو نوم أقلو أهدبو نينك قال كأنو نعبيه ها وحانو كو إنا نمدونو ظروفها نقو قصباي إنا إنو مدنا قرنا مسلم هدينو نايميل والبان شوغنو ظروف تايا نقو قصبايش هذا الريال ودن مسلنا إنه كرو كعو ولا ديديه وحد نبعتها إنه جوا عنا ومنافقين تانو بدن واحد شرو كوب بدن أو مسلم شاعنا أو أن مسلم دبا هاي بين يقول دحشرو أو أذيك قال هذا هل كاسة نبعتها نجا عاد ها نبعتنا هاي ستو مسلمين توحلا الدنيا ميلو البادونك كتشوغان إنه ميدوبان أي هل نقدان بلغ الدنيا منافقين تينا إنه إسكا إلالينو إنه إلهي أقد دعوونو وايو وحكو وانشاليا واو منافق شاقنا دينة إسلامك دينة إسلامك الله شاقنا والغو وانشالا شلافا لغو بحنايا ووحا نغنا هايستا دان سومالينا annagu haddaan Soomaalinahay dhibaatadaasana haysato 35 sano baan burbursanahay baaba'sanahay waxa saan noo galay waa isla annagii ba iswanjalayno okay marka kaas muslim maaha waa munaafiq weeye ha wad ogtiin annaga al-shabaab haysanaa Soma waxana laayay in dhameeyay ee saan noo galay al-shabaabku waxay la shaqeeyaan cadaanka la shaqeeyaan gaalada la shaqeystaan waa la og yahay قالوا هواي هادو مسلم دابا يهي محو نو ديليا محو نو بابينيا محانو كسمينا محانو كحلينا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قفله او كركا لغا جرايو حاجه لغو ارك كاسي وا منافقان هدا شيغيده وكان مسلم كإسكاب نجايو لكن أنا مسلم أهين ومنافق بلوغيرة أدونك النوع السكرة وعذوي قال كأسيا كعقد درنبا سببتو وقف وحبك قلب سنين ما أنت أنا يا سان نوقل هدان سومالينا معيد كلا نوسو دوشي وامايا أنا إسدلي أنا إسلايني أنا إسدباتيني أنا إسعني أنا ماتيدا أنا دي محستا أنا دي عيال كان دي عرورتا يدي قيلي أنا حبد نفط إسقى قادني أنا قرح النفط إسقى قادني كواس قال دي ودي جيان أوكي هذا وافهمتين صومه دنت أن وحن كوضو هذا الكيغ وحن كوضو هذا وافهمتين صوبه مركا وحن كوضا منافقين تا إنو بدن حدان مسلم نحن منافقين بدن با إنو بحجرتو ها والا وانشالي أمور المؤمنين كي يا والا وانشالي بل معاكو سو كردي كوا كلا او وحان اركاي دقمه او ايريان oo dabaaldegayna waa arkay saasa u kala qaybsanahay marka anaga dhibaatadeenu waan kala qaybsanahay haddaan muslim nahay ibkaasa nagu badan qayb baa gaalada u adeegayso ha waxaan arkay kuwa Iiriyaan oo Iiriyaan ka soo jeedo oo dhalashadooda Iiriyaan tahay oo London ku dabaaldegayaan arkay kuwa Mareykan ku dabaaldegayaan arkay oo calankii area wato haye xagay u socdaan kuwaas waa munaafiqiintan hadda sheegayade munaafiqiinta aan hadda sheegayo weeyaan meel walba way joogan munaafiqiintaas okay qof muslim hadaa tahay waa in aad tahay qof geesi muslimka dhabta ah inuu geesi noqdo laga rabaa waa inaad geesi tahay horta number 1
وإن هذا دلدلين لحين أو ميل لغاسو قلي كر أيسن جرين ها دين الإسلام قالوا شيء قفك جيسية الدفاع عن كرو دبنمديس شرفتيس دينتيس وإنو الدفاع ذا قفك مسلم كا صحنا عبسي الله مبانو أدير عبسي إلهي باكوغوله الله يكو أبورتي عبسي كوغوله أوكي أدون سيدادو كلا أو مسقش تغيو عبسي كوغو ملاحر وإنا مسلم لماذا هذا يقيقاقيا شرفت هذا إيا موحاتهاي وإنا الدفاعي كرتا أدباور ليدهاي ها بني آدم كالله مباهنو إنا ديناه سفور رسالة مباهن حلقة وحي سومالي وحي ترى هذا لحوال بماشي اسلكتاي أيا لغو قراء لحوال بماشي اسلكتاي لغو قراء أدر دينت هذا وإنا الدفاعتها وإنا شرفت هذا الدفاعتها وإنا ضدنمد هذا الدفاعتها وإنا الإسلام لماذا هذا الدفاعتها وإنا بنانك أصبحتها وإنا كل نمتها يا ما هنا إنا عندها هوس في الرسالة أنا وحيت ما هذا اللي كرو أنا ما هذا اللي كرو ويا كعب سنيسا يا كبقيسا يا كبقيسا من بني آدم أديكو كلاها كبقيسا مسلم متيد مركز شيطان باتها إيفول باتها أوكي حيوان باتاي دلي باتاي ضعيف باتاي ابن آدم بادن أهين dadku waxay ka ishoodaan oo ka heebaystaan qofka damiir kale war adeer ninka gaalka hooya dhashay 9 bilood buu ku dhashay adna 9 bilood baa ku dhalatay okay gaalka ilaahay baa idin wada abuuray sidoo awoodaas asaga ku gaaray adigana lagugu diiday yahay nuclear inaad samaysato maxaa lagu la dagaalayaa Iran maxaa lagu la dagaalayaa maanta maxaa loo dilayaa waxa loo dilayaa seed u samaysan kartaa nuclear wadankiisiiba lagu dhac dilayaa inta loogu yimid baa lagu dhac dilay yaa fududeeyay ku kalo islaan sheeganaya fududeeyay dalkiisii inta loogu yimid ayaa lagu dhac dilayaa haye ka war bal dulmiga inta la eg bal arka 9 bilood buu ku dhashay ninka saa wax yeelay dalkiisa intuu ka duulay dal kale intuu ku duulo soo qaadanayo madaxweyne dad kale intuu u taga dalkiisa ku dilayo ninkaasi 9 bilood buu ku dhashay adna 9 bilood baad ku dhalatay waxa isma dheeridin adoo 5 bilood kuma dhalanin ha asaga kaliya inuu adduunka ka noolaado hadduu nuclear samaysanaya asaga kaliya inuu nuclear samaysto asaga kaliya inuu adduunyada ka taliyo inaanan dawlad muslina oo maxay ahayd toolay isku soo dhereeriso inaanan adduunyada aan maxay ahayd toolay aan laga rabin banaankaas oo isa soo dhigay powerkiisi banaankaas oo soo dhigay awoodiisi xiniyihiisi banaankaas oo soo dhigay heer waxa la gaaray dal aan dalkiisa ahayn intuu daf dhaho inuu ka soo afduubto madaxweynayaasha ha 9 bilood buu ku dhashay ninkaas 9 bilood buu ku dhashay dhicis ma aha adna 9 bilood baa ku dhalatay sida awoodaadi marka awoodaadi aaway islaan hadaa tahay aaway awoodaadi waxaas waa waxaad u kala jajabantiin munaafiqiin aad u tihiin sacuudi arabiya shalay waad arkayseen dabada u ruxay sayntu saa ugu ruxay saasu sayntu ugu ruxay saas ninka la leeyahay maxay tale wadanka hadda aniga aan joogay ee America ninka madaxweynaha ka ah waa kii sacuudi arabiya tag sixir buu geeyay وادينكي سينت ورحيسين كحابي هذا ما تواقع صاي خضر بو تغي وحان اوغانتا لو سو راري ما الهي بك بقنا يان marka kuwaas muslimiin ba loogu yeeri kara muslimiin loogu ma yeeri karo waa munaafiqiinta hadda aan sheegayo weeyaan ha ma muslim baa tahay ilaahaygi ku abuurtay kama baqaysid waxaad halka mariso oo dhuunta mariso yaa ayaad interested gaasku iga gataa waan noolahay daarahan dheer baan leeyahay ha maanta ani waan dhaqanahay maxaa iga galay aniga balaaya buul baan ka galay nabi maxamed xabad jabaati ah buu diinta islaamka dadka ku gaarsiiyay hal xabad jabaati ah yaa saas loo kala goosanay waaga asxaabta god buu galay heer wuxuu gaaray uu god galo واد أوجيدين صلى الله عليه وسلم خير خلق الله دين تقبعته وأصمر واد أكتي والله سعطان كتاب القرآن كي كتالا ما حاجة على دبض الله قرقي
maxaa gaalasaynta loogu ruxay khadaray ka xaaxaabi maanta waa adiga diyaaradan aragtay ee qaaliga ah dhab ku siisay Trump maanta abaalkaaga wuxuu ka dhigay inuu madaafiic isku kiindiro idinkii muslimiinta ahaa ee intuu dushaada saas u maro walaalkaan dhab soo siistay oo mindida mariyay yaa ku xiga who is the next to you because doqon baa tahay aqli malihid inta waa lagu wajalayaa haye maanta maxaa gacanta ku haysan marka maanta gacanta ku haysan in madaafiicdi walaalka madfuuc soo tuuray daarahaaga in lagu dumiyo oo lagu wanjalay doqono ana waa ogahay inay doqomo yihiin carabtu inay yihiin